Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalahey soo dhawaada kusoo dhawaada dhadhan xawaash meel kasta aad joogtiin cunto yaroo fudud macaan indhaha u roon simbal ah oo jecel lagu kariya insha allahu tacaala walaalahey maanta meeshan waxaa noo yaalo baradho dhuleed bataata dhuleed qofba siduu u yaqaana bataata guduudkaaseeto iyo caanahaseeto qumbaha caana naarjiin qofkii mindidaas haystaa iyo geedkaas qof hadaa mindida haysta mindida ku jiro laakiin ani maanta kanaan ku fiiqaya insha allahu tacaala digsigaasa ku karineyna insha allah waa huuris bataatahaneeto waxna karis badan uma baahno waa la huurinaa keliya insha allahu tacaala walaalahey ha ismarteenina kusoo dhawaada dhadhan xawaash meel kasta aad joogtiin waxaa idin leeyahay gacmo furan qalbi furan cunto yaroo macaan fudud indhaha carabka qalbiga meel kasta maasha allah deeqayso waxaa idin leeyahay soo dhawaada maanta hadduu videogan kugu cusubyahay channelkan kugu cusubyahay naga ilooban subscribe-ka laaga iyo walaalahayo la wadaagta insha allah comment wanaagsan oo qurux badan farax gelin ah dhiirigelin ah maasha allah insha allahu tacaala adigaa kaa sugeena hadduu alla idmo walaalahey waxaa idin dhahay maanta bataata dhuleedkaanaan karineynaa bataata dhuleedkaan si badanaa loo kariyaa insha allahu tacaala wax badan waa ka dhargeynaa geedkan aaduu u fiican yahay maskaxduu dejiyaa hurdaduu soo dejinayaa waxaan ku dhahay haddaa badsato hurdale maka baxaysid yaa hurdale maka baxaysid dadka hurdada ku yartay insha allahu tacaala caloosha kulli meel kasta starchkiisa waa badan yahay laakiin maasha allah dhulu kasoo baxay wuu ka fiican yahay baastada iyo waxaasito kale oo sokorta badan insha allahu tacaala maanta macaana u karineynaa bataataasito waxaan ka dhigeynaa naarjiina ku karineynaa qumbo qofba siduu u yaqaano qumbo caanaa ku karineynaa caanaha qumbaha insha allahu tacaala kaaslee biyo u noqonayo adi sidaa rabtid u jarjaro dhuudhuub u jarjaro qafiif u jarjaro balbalaar u jarjaro ani sidaanaan jeclaysta inaan u jarjaro walaalahey soo dhawaada ha ismarteenina minankiina waay walaalahey hore idin noola joogana aada iyo aada umahadsantihiin soo dhawaada idin leeyahay sidaa hore nooga barteen cunto yaroo fudud indhaha carabka iyo qalbiga aada u anfaceysa insha allahu tacaala walaalahey ilaahay waxaan ka bariyay birjaro rajab waa dhamaatay shacbaanaa dhalanaysa hadduu alla idmo ilaahay inuu nabad iyo barwaaqo iyo bashbash nagu gaarsiiyo oo nabad ilaahay kuwa ka faa'iideysta ilaahay inuu naga dhigo inta xanuunsan ilaahay caafiya inta dhimata ilaahay u naxariisto inta caafimaad qabta caafimaadkooda ku kibrin ilaahay ha u siyaadiyo walaaley waxaa idin leeyahay soo dhawaada maasha allahu tacaala wixii dhan waa soo fiiqday sasa u jarjaraya hadda maasha allah inaba caadi ma aha baradhadaanita bataatahanita aada iyo aada iyo aadaa looga helo walaalahey dhan markii la cunay waxaan ku dhahay casiriyadii maanta waxaa waaye quraacdii iyo qado waxaan loo kala ka siinin iyo waxaa la karinayaa weekendiga waaye waxaan ku dhahay kaala aragid mala waxna waa duwaneynaa gadaalaha nooga soo imaanaya insha allah intuu ka noo karaya casiriyadii aan diyaarsaneynaa quraacdeena iyo adduunkiina dhac karsaneynaa maasha allah maanta ila kariya walaaley waa kasaana usoo jirta oo soo dhaqaaya insha allahu tacaala soo noqoneynaa walaaley waa ka soo noqonay maasha allah tabaarak raxmaan si fiican usoo nadiifiyo wasaq ah ka baxaysa madoobaad ah insha allahu tacaala heel iyo qorfi iyo dhagyaro wax dhan isku heshiidanaa aan ku darayaa qeybta kore heelka weelku iigu jiro waxaa waaye buunsho camal qeybta dambe oo dhalada u hooseyso oo budada ahaan ku darsada maasha allah waxaan ku dhahay sheeb iska dheh waxaa la rabaa caraftiisa xaafad in laga soo carfiyo insha allah gasacada oo naarjiin ku jiro qumbaha ku jiro waxaa waaye waan ruxaya maxaa yeelay way kala tegaysaa qeybta hoosena biyo noqonay qeybta korena caanihi adkaa marka inaan ruxdo waaye koobkanayta waxaa waaye koob 3 meel loo qeybiye 1 meel waaye oo brown sugar kusoo darsaday waxaan rabaa wax yaroo guduudan oo qurux badan inuu iisoo baxo haddaa guduudka rabina sokor cadaa ku darsanaysaa oo waxaa waaye iyo biyaha caadiga ku karina mise caanaha caadiga laakiin ani maanta waxaan rabaa heel iyo naarjiin iyo adduunyo caraf maasha allah inuu soo baxo
waxaa idin leeyahay soo dhawaada, ha ismartiyeenina. Markasta waxaa idin leeyahay cuntiiro fudud, qurux badan, macaan, indhaha iyo qalbiga u roon. Naarjiinka waa kaasita caanaha markaa ruuxdo wuxuu ku baxaa kulligiis isla ekaanaya, yacni kii hoos jira kii kor jira wuu isdhexgalaya. Laakiin markaa saas u furto hore uga shubto qaybta horena bug ee dhahay, qaybta dambena balalaq biyaha waa walaalihii waan karineynaa insha allahu tacaala. Meeshaana soo saaraneynaa. Soo dhawaada idin leeyahay ismartiyeenina. Mininkiina waa kaasita jag ku siinay dabka u shidaneynaa, waa gaabineynaa. Waxaan ku dhahay sheeb iska dheh waay. Waxaan ku dhahay geediro maasha Allah macaan maanta iga qabatay. Ani maxaa suubinaa wax kasta iga qabatay niyada ku soo dhacdo. Waxaan rabaa walaalihii inaan la wadaago. maasha Allah waa daboolna dabkana waa u gaabinay. maasha Allah haddana waxaan karsaneynaa quraacdeeni dhagdhagta ahayd maanta malawax iyo waxaa rabaa chicken suqaar oo qaleel ah in la isku cuno insha Allah tacaala. maasha Allah inta waxa igu jira 4 koob oo burac ku soo shubtay, wax yar cusbaa ku darsaday, adiga wax yar afka hore gacanta wax yar sokorta badan marbi waa ku guduudinaa kaliya. Guduudiskaasita waa aragteen wadamadan aan joogno burka hadaan sokor wax yar lagu tusin ma guduudanayo. 2 xabo ukun aan ku soo darsaday maasha Allah. malawaxa qofka soo yaqaana laakiin aniga marba sila u qastaa. laakiin muhiim meeshaanayto wadamada aan joogno adan wadankeena markaa joognay malawax markii la qasi biyo lagu qasi jiray balaq hore la gudguduud u noqon jiray. Inta waxaa waay sokor ku dar, caano ku dar, hagaaji maasha Allah ka dhig. weli waxaa waaye sidii qaarkood si fiican ku guduudanaay. wax yar oo saliidna waan ku soo daray walaalihii. saliidaanayto waxay ka dhigaysaa kisto sidii oo qurux badan ay ku soo saaraysaa maasha Allah oo culus. aniga waxaan isticmaalaa gurigeena laga isticmaalaa caanaha laagteedka. marka haddii calool xanuun iyo gaas iyo caanaha kala caadiga markaa cabtida caloosha iyo gaas iyo wax ku ka kaco iska bedela caanaha laagteedka ku bedela insha Allah tacaala. ilaahay wuu kugu caafimaadinaya. alxamdulillah anaga waa ku caafimaadnay. marka hore ciyaalka caloosha laga sheegin jireen laagteed tolerant aan wada noqono anaka dhan. saacanihi furweyna iga yeertay regular caanaha oo caadiga ah soo cabiyeen. waxaan ku dhahnay shib iska dheh. laakiin alxamdulillah ka reysana gaas iyo calool fuuran iyo aan ka reysana laagteed ka soo baran. alxamdulillah ilaahna wuu nagu garab galay wuu noo fududay walaalihii. birti oo wax lagu shiiday afkeeda kala waay. alxamdulillah laakiin kaligeed la ku shiiday halka xabo hal ilig taagan dhirq ku sii maasha Allah. waxaan ku dhahay caanaha yaraada caana kala ku darsaday kasto waxaan dareemay inuu ku yar yahay malawaxana moor jilciso moor qurux oo ku soo baxay insha Allah oo jilicsan oo maasha Allah carabka saaray sibxi ee tahay ku soo baxaya maasha Allah. walaalihii soo dhawaada ilaa inta soo gaartay hanaga iloowin inaad subscribe noo saartid hadaadan hore subscribe noogu saarin. laagan ha iloowin insha Allah tacaala walaalihii. soo dhawaada haddana dubistayaan bilaabeynaa maasha Allah. birta way noo soo kartay way noo soo kululaatay. bocorkeeni bocor ay yeertay. waxaan ku dhahay baradhadina waa noo karoosaa. sheebes ka dheh war lema wadeena yaa shib iska dheh waa. saliid caagaan ugu jiraa easy hadaarita qaado ku shubo. laakiin hadda caagaanita mar hore iga dhumus meesha hoos ku jira soo helay. waxaan ka dhahay si fudud maanta dhan qaadad le balaq ku sii dhulkaaga tifqays maxaa ku geeyay bageedkaanita dhakab soo siiyay saliid soo buuxiyay. haye hooshaa ku qabso waay hooshaada qabso. malax ku dhahay qafiif qurux badan soo baxay. walaalihii soo dhawaada laagaha naga iloowina
ilmaha markaa gacanta saas ugu qabto waxay dhahaan se u sameynaysaa saas gacanta markaa goonayso tinaar in gacanta lasoo geliyo ma oga ayaga dab dhan oo shidmaya qajajajac dhahay in gacanta loo geliyo ma ogo waxaa ku dhahay waxaan yariiska goorme se u suubinaysaa maku gubayso waxaan ku dhahay shib iska dhaha idinka wax ma ogadiine yaa raaxadaanayti adduunkaanayti waxaana soo marteene maasha allah anaka baraaxo kusoo korna yaryarkeena laakiin maxay ku dhiibataa nolosha waa ka seenaa sida loo qabsado maasha allah baradhadii fiirineynaa bataatihii siduu xaaladiisa meesha maraya inuu si fiican u karaayo maasha allah si fiican u karaa mala walwalaaqay abaa walaaqdooy waxa walaaqa ka jooji wax yar ma aha yaa walaaqdooy waxa walaaqa ka jooji wax yar ma ahan mala walaaqay ku dhahay sidiis inuu ku soo baxa soo isheystaa la rabaa maanta mala waxaanayta sabraaso ciyaalku ahaa weekendiga waaye alisiya soo kacee waxaan ku dhahay dhaca uga siiye jag qado iyo wixii kale ka siinina waa looga dhige iyo quraac inta u dhaxaysana waa looga dhige ka warne alisiya wax la kariye haddana waxaa la suubiyey qado iyo quraac waxa loo kale ka siinin aa laga dhige dhaca waxaan ku dhahay shibiska dhahay barqadii hurdaa laga soo dharige weekend aheede hurdaa laga soo dharige marka hurdada laga soo dhargaa la soo kaca la cunay kadibna dugsiga la aaday maasha allah bataatihii si fiican ku soo baxay way soo dhamaatay waa laga daminaa dabka daasad noo walwalaaqo inta waxaa ku karsanaynaa geed chicken ah digaag inaba caadi ahayn aan dhac ka siisanaynaa digaag waa soo dhaqa aniga dhaqo la ii sheeg ma idin tusi laakiin waxaa dhihi laheedeen saan maxay ugu dhaqaysaa zaa'idka ah nahdi dhanayba ka dhamaysa qoftaaniita alaabtiya yaa maasha allah weligaa chickenka markaa rabtid inuu qaleel ku ahaado saliid yar ku shub haddaa rabtid basal ku shubo laakiin bahal ku shub dhaaf ilaa biyaha oo ka nuuxsan maasha allah bataatiisaana noogu soo baxda waxaan ku dhahay meelaa la dhigaa hoolaa laga qabanaa hool insha allah waa ka walaalahay chickenka shibaan ka dhahay ma gedinin waxna ma ku taabanin biyihii dhan wuu ka dhamaystay haddaadan rabin inuu gufur iyo wax cadcad yeesho saas lee suubi markastana waa idin sheegaa waa kaasas ku soo baxday qaleel uu yahay wax gufur dhan ma laha nakata ma laha marka wax shiilan oo qurux badan oo ku noqonayaa geedkaasaytan markii soo ku darsadaa oyster sauce-ka waaye dhadhan yaroo fiican u yeelaya jukey walaaqdi hadda bilaawatay walaaqdi oo bardha bataati ka baaqday hadda u bilaawatay jow laga siinaa maanta maasha allah haddana isbaaska waxaan aniga raba lee ku darsanaa aad waxaa rabta ku darso hadda toonta shiidan aan ku dara waxyar waxaan ku dhahay shib iska dheh waxyar oo dhadhan xawaash oon weli soo bixin aan ku daro oo basbaas yar leh insha allah chickenka iyo malaagi waxaasayto aa ku darsan kartid insha allah baradhada iyo basashaan kusoo dare shib iska dheh waxaa la rabaa waxaanayto dhacaan dhan inay yeelan ayagoo qalalansas ah in malaxa lagu qabsado yaa saliid male wax male maasha allah hadda waxaan ku dara qudaarta isku dardarka frozenka waxyar
dhacdhaca waxaan ku dhahay indhaha quruxa la rabaa orange green white yellow ya maasha allah qurux kale cunteero fudud indhaha carafka qalbiga wax kasta u roon waa dhadhaminayna hadda maasha allah dhanaankiisa dhanaan yaro fiican waaye maadaama wester sauce aan ku daray dhadhan xawaashna aan ku daray maasha allah waxaan ku dhahay cusbo badan lama rabo cusbo badan maya maasha allah hadda diyaar unu soo yahay wax yaraa la walwalaha qaan ku dhahay dhanaanka hoos nooga dhagayna waxaan ku dhahnaa waa isku soo kakacsanayna saan ma uga tagayno khaleel maasha allah wax yar biyaa ku dara 2 qaado camal siduu dhanaanka hoos ku dhagdhagay isku soo kaco biyana mu yeelay maasha allah waa ka asaga isqaato jida maxasid dhanaankaas waa meesha ugu fiican hadduu digsigu ku harso qaab darro ma aha soo warah ma aha allah raxmo inaa naxariista abrirtay warah ma aha dhii jirta soo warah ma aha maasha allah tabaarak raxmaan suqaarkii chicken saan noogu soo baxay digaagii malawaxii iyo casiriyadii galabta la cuni lahaa maasha allah walaalahay aad iyo aad u mahadsantiin daawashada daawateen khayr iyo nimca idin dhaafay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh